maxaa ku dhacay ninkii soo saaray gaarigii biyaha ku shaqaynayay mase og tahay in la sameeyey gaari biyaha ku shaqeeya isla markii uu soo baxayna la joojiyey waa maxay sababtaynu u isticmaalno gaari ku socda shidaal yacni batrool amaba naafto iyadoo xal loo heli karo in wax aan saliid ama olyo ahayn lagu isticmaalo gaadiidka haddaba bini'aadanku mar hore ayuu ka fakaray arrinta gaar ahaan in la helo shidaal aan ahayn kan aynu maantaynu isticmaalno aad uga kharash yar amaba lagu heli karo bilaash amaba lacag la'aan muuqaalkeenna maanta ayaa ka jawaabaya sababta ilaa iyo hadda loo soo saari waayey waxaan saliid ama ooliyo amaba shidaal ahayn oo ay baabuurtu ay ku socoto iyadoo sannadkii 1998 markii ugu horraysay 26 sano ka hor la soo saaray gaari ku socda biyo gaarigan ayaa mar hore la daah qaaday si waddooyinka loo saaro gaadiid aan qiiq hawada ku sii daynayn guux badan lahayn oo deegaanka u fiican hawada sii kululaanaysana gacan ka geysan kara in ay caadi ay ku soo noqoto oo diirimaadka adduunka hoos loo dhigo Stanley Meyer waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee daah qaada gaari ku soconaya biyo iyadoo aan wax gaas ah yacni batrool amaba naafto la adeegsanayn waa bishii March ee sannadkii 1998 xilligaasi oo ay Ameerika ay ka jirtay shidaal yari baan Stanley waxa uu yaraantiisii ahaa mufakkar jecel samaynta waxyaabaha elektroonikada ah amaba shidaalka ku shaqeeya isaga iyo walaalkii ayaa isku dayo fara badan samayn jiray si ay wax cusub ay u soo saaraan Stanley markii uu koray oo nin weyn uu noqday waxa uu dadaal dheer u galay sidii uu u hindisi lahaa gaari ku shaqeeya biyaha caadiga ah ee la isticmaalo Stanley Meyer waxa uu suurta gashay in uu laamiga uu saaro oo uu kaxeeyo gaari biyo ku soconaya oo aan u baahnayn shidaalka qaaliga ah ee maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraya ee dadka madax wareerka ku riday waxa muusiko ay ku yeertay oo waagu uu ku baryay shirkadihii waaweynaa iyo maalqabeennadii ka taajiray iibgeynta saliidda iyo kala rogista lacagta ka soo gasha ee xaddaafka ah fax iyo iimaylo ayay isku wada direen tel ayay isku wada tiigsadeen shanta qaaradood ee adduunka ayaa qayle ka yeertay muxuu ahaa ninkan iskaamerka ah ee isbaarada u dhigtay ganacsigeenni ninkan sidee ku joojinaa waa inaynu si degdeg ah wax uga qabannaa inta aan xaaladdu faraha ka bixin waa erayadii ay ku tiraabayeen ragga jeegada laalaabka ku yeeshay ee xayrtu ay qarisay ee bilyaneerada noqday ee ka macaasha iibka saliidda oo ah mid ka mid ah ganacsiyada ugu barwaaqada badan adduunka shir ayay isugu yimaadeen waxaa hogaaminaya madaxda ugu sarraysa sharaa'iga shidaalka ka shaqaysta shirarka oo qarsoodi ahaa ayaa la isla soo qaaday in ninka faashilka soo wada ee Stanley Meyer malaayiin dollar la siiyo si uu uga takhaluso gaariga biyaha ku soconaya farahana uu uga qaado shaqada gaari samaynta laakiin wejigabax iyo diidmo ayay kala kulmeen Stanley oo ku kalsoon in hindisihiisa taariikhiga ah uusan u qalmin in laaluush lagu joojiyo intaa kadib waxaa dib u shiray shirkadihii shidaalka iyaga oo markaa go'aankooda ka dhigay in la dilo Stanley si fikradda gaari samayntuba ay u istaagto oo ay isaga ay ula dhimato sidii ayay ku dhaqaaqeen waxay iska soo abaabuleen koox isku ekaysiisa maalgashadayaal caalami ah si ay kharash ay ugu bixiyaan mashruuca gawaari fara badan oo biyo ku shaqaysa Stanley waa uu ajiibay kulankii waxana uu ka aqbalay in ay kooxda ay ku kulmaan meel maqaaxi ah oo lagu qaxweeyo shirkii ayaa furmay Stanley ayaa loo keenay galaas cabitaan ah markii uu hal mar ka baday ayaa caloosha iyo dhuuntuba ay xanuuneen maskaxduna ay rogmatay walaalkii ayaa la socday walaalkii ayaa madaxa qabtay oo bannaanka u soo saaray si uu halkaasi uu ugu matago walaalkii ayaa weydiiyey sida loo hayo kadibna waxa uu ugu jawaabay hal eray oo ah kii ugu dambeeyey ee Stanley laga maqlo kaasi oo ah waa ay isumeeyeen halkii ayuu ku geeriyooday Stanley sidoo kale waxaa la dhintay fikraddii gaari samaynta oo ah fikrad cadow badan leh cadowgaasi oo ay xitaa ay ku jirto dowladdiisii la rabay in ay difaacdo intaa wixii ka dambeeyey qof kasta oo ka hadla kiiska Stanley waa la aamusiyey ama lacag ama xabad midkood ayaa lagu aamusiyey adiguba isweydii kolkii uu COVID-19 ka dilaacay dunida bilowgii sanadkii 2020 6 bilood kadib waxaa la soo saaray tallaalka lagu hakinayo amaba looga hortegayo xanuunka amaba fayruska coronavirus oo markaasi ahaa mid safmar ah oo adduunyada ku cusub wax daawo ahna aan lahayn laakiin ma isweydiisay HIV oo virus ah daawo rasmi ah looma hayo muddo 44 sannadood ah
sababtu waxa weeye dawada kaalmaatiga ah waxaa soo saara shirkado gaar ah oo balaayiin dollar ka hela sannad kasta. isla shirkadaha daawada sameeya ayaa lacag ku laaluusha saynisyahanadii soo saari lahaa tallaalka HIV ama daaweyntii fayruska ka dhaqi lahay jirka. waa adduun musuq maasuq iyo cadaalad darro buux dhaafisay. qofka lacagta haysta ayaa talinaya oo dadku waa maadi ama materialisti waxa afka qalaad lagu yidhaahdo aan waxba xeerinayn aan ka ahayn maslaxadiisa shakhsiga ah. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay pageka Bulqaas Media ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tidhaahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad sheer garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga faa'iidaan. wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska. aad ayaad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.